madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo imaaraadka oo la sheegayo inay aad isugu soo dhawaadeen kadib albaabo badan oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud u garaacay arrinta ayada ah. imaaraadka ayaa wuxuu inta badan lidi ku ahaa xukunka madaxweyne xasan sheekh maxamuud, sidoo kale waxa uu lidi ku ahaa xukunka madaxweynihii ka horreeyay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. imaaraadku lidi ayuu ku ahaa. madaxweyne xasan sheekh maxamuud si toos ah imaaraadka ulama dagaalamin, laakiin waxaa jiray isfahmi waa inta badan iyo imaaraadku in aanu rabin Soomaaliya oo dowlad midaysan oo awood leh ay ka dhisanto. laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud khilaafkooda hoos ayuu u dhigay, haddana waxaa la sheegayaa in uuba ku guuleystay in khilaafkaas meesha laga saaro. waxaa jirtay dhowaan 2 asbuuc gudahood in ay 2 wafdi oo imaaraadka ka socday si degdeg ah ku tageen madaxtooyada iyo villa Soomaaliya. waxaa jirtay in wada hadal halkaa ku dhex maray, wada hadalladaasna aan bulshada loo shaacin, iyadoo labadaas wafdina ay sidoo kale ka soo horeeyeen wafdi Suudaan ka socday. laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo danihiisa siyaasadeed iyo danaha Soomaaliyaba inta badan eegaya ayaan imaaraadka si toos ah dagaal ula gelin. in imaaraadku marka iyada ah ka cararaya saameynta Soomaaliya ay ku leedahay qaramada midoobay iyo kursiga aan joogtada ahayn ay uga faa'iideysato khilaafka ka dhaxeeya Suudaanna ay si toos ah u garab istaagto dacwada ay Suudaan ka gudbisay dowladda imaaraadka. marka waxaa la leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud dacwadaasna kuma adkaysan, laakiin waxaa la sheegay wafdigii dowladda imaaraadka ka socday in uu kala hadlay arrimaha Soomaaliya inay faragelinta ka daayaan, haddii cid la macaamilayaanna inay dowladda dhexe la macaamilaan, iyaguna inay ka gaabsan doonaan waxyaabaha khilaafaadka ah oo imaaraadka iyo dowladaha kale ka dhaxeeya. haddana waxaa jira wafdi maalmihii lasoo dhaafa ku sugnaa dalka imaaraadka carabta, wafdigaas oo hogaaminayo gudoomiyaha midowga Afrika ee ninka la yiraahdo Maxamuud Cali Yuusuf. ninkaas oo aan ognahay sida madaxweyne xasan sheekh maxamuud u taageeray, ninkaas oo asal ahaan ka soo jeeda walaalaheen Djibouti oo ahaa wasiirkoodii arrimaha dibadda hore uu ku guuleystay gudoomiyaha midowga Afrika ama AU-da kadib markii dowladda Soomaaliya murashaxii Soomaaliya uga taagnaa uu tanaasulay, madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uu si toos ah u taageeray. marka waxaa la leeyahay gudoomiyaha Maxamuud ayaa waxa uu kala hadlay arrimaha Soomaaliya dowladda imaaraadka inay faragelinta ka daayaan arrimaha Soomaaliya. dabcan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelana meesha iyada ah kama marnayn. marka waxaa la leeyahay arrintaas xoogaa isfahan weyn ayaa laga gaaray. marka waxaa meesha muuqata in madaxweyne xasan sheekh maxamuud mucaaradkii u daba maray dowladda imaaraadka iyo madaxdii maamul goboleedyada ee halkaa ku xirnaa. halkaas waxaa la leeyahay guul weyn ayaa siyaasad ahaan uga soo hoyanaysa madaxweyne xasan sheekh maxamuud. gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Maxamuud Cali Yuusuf ayaa soo gabagabeeyay safar guul leh oo uu ku tagay Abu Dhabi, wuxuuna xoojiyay iskaashiga imaaraadka carabta iyo dalalka Afrika. isku tagga imaaraadka carabta iyo midowga Afrika ayaa maanta waxay xuseen qoto dheerayn wax ku ool ah oo ku saabsan iskaashigooda istiraatiijiga ah ee u dhexeeya midowga Afrika iyo dalka imaaraadka carabta. intii lagu jiray booqashada rasmiga ah ee uu ku yimid mudane Maxamuud Cali Yuusuf gudoomiyaha midowga Afrika magaalada Abu Dhabi, natiijooyinka muhiimka ah oo uu sheegay mudane Maxamuud Yuusuf in si diiran uu soo dhaweeyay amiirka Abdullah bin Zayed Al Nahyan, wasiirka arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka imaaraadka carabta. sidoo kale waxa uu sheegay in kulamo muhiim ah oo la yeeshay mudane Sheekh Shaqbood bin Nahyan Al Nahyan, wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo sidoo kale marwada ku magacaaban wasiiru dowlaha iskaashiga caalamiga ah. imaaraadka midowga Afrika ayaa waxa la sheegay wada tashiyadii ugu horeeyay kadib markii la soo doortay gudoomiyahan cusub ay yeesheen wada hadaladii ugu horeeyay. wada hadaladaas oo sida la sheegay ku dhisan isku xirka mudnaanta labada dhinac iyo dejinta habraac lagu xoojinayo iskaashiga joogtada ah. labada dhinac ayaa waxa la sheegay in isla gaareen wada tashiyo muhiim ah, sidoo kale inay ka wada hadleen horumarinta dhaqaalaha, ganacsiga iyo maalgashiga, tamarta iyo gargaarka, kaabayaasha dhaqaalaha, teknolojiyadda iyo isbeddelka digitalka ah ee caalamka, caafimaadka iyo waxbarashada iyo horumarinta awoodda bani'aadamka, nabadda, amniga, dhexdhexaadinta iyo dadaalada xasilinta. waxaa la sheegay in arrinta Soomaaliya iyo xasilinteeda aad looga wada hadlay, sidoo kalena dowladda imaaraadka lagala hadlay isu soo dhaweynta villa Soomaaliya iyo dowladda imaaraadka si loo hubiyo natiijo wax ku ool ah oo ay dabagal ku sameeyaan labada dhinac. guddiye ay u saareen gudoomiyaha Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sidoo kale uga mahad celiyay amiir Abdullah bin Zayed Al Nahyan martiqaadka, wuxuuna mar kale xaqiijiyay sida midowga Afrika uga go'an tahay iskaashi ay la yeeshaan imaaraadka oo ku dhisan is-ixtiraam iyo dan wadaag. booqashadan ayaa muujinaysa adkeynta xiriirka u dhexeeya midowga Afrika iyo imaaraadka carabta xilliga iskaashiga ku saabsan horumarka waara, isbeddelka tamarta iyo nabadda, amniga uu kasii muhiimsan yahay sidii hore. waxaa la leeyahay marka gudoomiyuhu waxaa jirtay fariin uu ka siday madaxweyne
xasan sheekh maxamuud furitaankii biyo xireenka webiga niil sidoo kale waxaa jirta madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo midowga afrika gudoomiyahooda inuu xiriir wanaagsan ka dhaxeeyo kadib markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu aad u taageeray soo bixitaanka gudoomiyahan cusub haddaba waxaa leeyahay arrintii imaaraadka iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa in la dhameeyo ku dhow dhanka kale xogaha ayaa waxay sheegayeen in dhowaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku wajahan yahay Abu Dhabi waxaana la sheegayaa inay taasi tahay qurgooyada mucaaradka Soomaaliya maadaama ay halka meel ay taakulada ka haysteen oo naasnuujinta ka haysteen iyagoo ka faa'iideysanaya khilaafka filla Soomaaliya kala dhaxeeya Abu Dhabi laakiin waxa la leeyahay hadii arrinta la soo afjaro mucaaradka iyagana halka ayaa ugu dambaysa haddaba adiga aragtidaada khilaafka filla Soomaaliya iyo imaaraadka oo la soo afjaro maxay uga dhigan tahay mucaaradka sidoo kale filla Soomaaliya maxay ka faa'iidi doontaa aragtida waa inoo muhiim xagga hoose faalada nuurab wassalaamu calaykum way aragu waa door niman dunida soo marin garaadkiisu waa duug dad waxaad ka maqashiyo daymada ishaaduna dar ilaahay kala wacan ha isku noqonin dooligii ku duqoobay haante kaalay dunida Soomeer oo dalxiis ku soo aad ajensiga la doortee dadweynuhu ka daba dhacay adeeg daacadeed iyo degdegsiimo lagu xulay abka World Travel Agency and Cargo xarunta Nairobi waxa ay ku taalaa xaafadda Islii Maashka Fast Flow ama dabaqa koowaad F44 wixii intaas dheerna waxaad kala xiriiri kartaa lambarada shaashada kaga muuqda